Magaalada London oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga dabaaldegay munaasabadda Ciidul Fitriga ayaa waxaa si weyn isugu soo baxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku nool magaalada London iyadoo la arkayay saaka subaxnimadii hore safaf dhaadheer oo loogu jiray masaajidda si markaasi loogu soo tukado Ciidul Fitriga. Jaaliyadda Soomaaliyeed oo ka mid ah jaaliyadaha sida weyn u muujiya maalmaha Islaamka sida gaarka u astaysan sida maalmaha ciidda ayaa maanta si weyn isugu soo baxay xaafadaha kala duwan ee magaalada London. Beertan aan ku suganahay waxa ay ku taalaa North London iyadoo markaasi inta badan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan North London ay isugu soo baxeen iyagoo isugu hambalyeynaya ciidda qiimaheeda iyo weliba caruurtu ay ku ciyaarayaan fanfeerka. waxaan u jeednaa cayaaro oo aqligaada diidaya maanta fanfeerkan oo Soomaalida ay soo dhigteen waxaa ku badan dadka cadaanka oo Soomaalida ka batay maxaa sababay maanta ay ku soo aaday isniin ay tahay ee bangi holiday ay ku soo aaday iyo muslimiinta ciidooda isku soo aaday ayaa ku soo kulmay marka waa la isla baashaalaya marka baashaalka dhinaca ka wada wadana aad u mahadsantahay bishaar thank you